صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 صوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني دروس رمضانية وحلقة شن يتبنات. ولا وحين كسر هذا اللي حلقوين كي هرا وحين كسر هذا اللي فضل القرآن كوسكله آخرنت وحن أسوق من لبق قيبات تلاوة لفظية، وإنه كسر هذا اللي هل كانوا حنكا عندنا تلاوة حكمية قرآن كأني نسكو حكونه، يعني حلقة نكو يجدونه. إلهي سبحانه وتعالى مركي كوم كان هو أبوري سيدنا وأسمي وحو أصدر دستور كان رباني إلهي أصدر سبحانه وتعالى كتاب كإلهي إن أدون كل لغة معمله ولا قد يكتب معمل كيوحول بإساق لغا قاته سياسة دي إساق لغا قاته dhaqaalihii isaga laga qaato wax waliba nolosha quseeya in quraan kariimka laga qaato ilaahay saas ugu talagalay. hase yeeshee waxaynu arkaynaa in muxuu ahaa kitaabka ilaahay quraanka kariimka inaynu meel iska dhignay oo muxuu ahaa aynu qaadanay fikradda foosho xun ee cilmaaniyadda ku dhisan ee ah in la kala saaro siyaasadda iyo diinta in la kala saaro ee la yiri muxuu ahaa kitaabka quraanka kariimka ah kaliya in lagu soo koobay masaajidada in lagu akhristo iyo muxuu ah inuusan shaqo ku lahayn maamul iyo inuusan shaqo ku lahayn ee waxa dadka isku maamulayaan ay noqoto qawaaniin dad bini aadan uu sameeyay in la isku maamulo kitaabka ilaahay quraanka kariimka ah ee loogu talagal in meel aynu dhigno aragtidaas ayada oo aragti muxuu ahaa aad iyo aad u khaldan oo muxuu ahaa aynan dad islaamna aynan ka imanin aragtidaas foosho xun ayaa maanta dunidan aad iyo aad ugu faaftay oo in badan ina saameysay oo kitaabka ilaahay quraan kariimka aan meel aynu iska dhignay qawaaniin aynu qaadano walaalayaal. marka quraanka kariimka cidii ka leexatana waa cid ilaahay subxaanahu wa ta'ala uusan hanuun la doonin. ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofkii quraanka kariimka raaca waa qof muxuu ahaa aan marna qofka isaga aan lumayn, waa qof aan lumitaan aan looga baqayno walaalayaal. hase yeeshee qofkii quraanka kariimka wadada ka leexdo quraanka wadadiis aan marin ee quraanka ka jeesta adduuni aakhiraba wuxuu noqonayaa qof muxuu ahaa khasaare iyo dhibaato la nool iyo ciriiri ku nool sida ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankiisa uu ku leeyahay waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'iishatan dank. qofkii ilaahay dhikrigiisa iyo quraankiisa ka jeesta wuxuu leeyahay nolol ciriiri ah hadduu doono dhaqaale kasta hanti kasta haysto isagoo imisaynu aragno dhaqaale adduunyo wax walba haysta nolol ciriiri ku nool maanta ee xanuunay dhibaato iyo mushkilad iyo mixan la nool. ilaahay yaa sheegay subxaanahu wa ta'ala cid allaale cidii dhikriga ilaahay xuska ilaahay ka jeesata nolol ciriiri ku noolaanaysa walaal. wanaxshuruhu yawma alqiyaamati a'ma. maalinta qiyaamana isagoo arag la ayaa la keeni doonaa qiyaamaha. marka waxaa la rabaa ilaahay xuskiisa iyo dhikrigiisa iyo quraankiisa waxaa la rabaa inaynu la noolaano ma aha inaynu ka jeesano ma walaalayaal. haddii aynu ka tagno barwaaqo iyo wax la helay habarata ma jirto. dalkeena dhibaatooyinka iyo mashaakilka uu ku jiro waxaa ka mid ah manhajkii ilaahay inuu soo dejiyay waan ka leexano walaalayaal maanta. markaas haddaan kitaabka aan isku xakunno shareecada aynu qaadan waxa la war suga muxuu ah shareecada iyo waa la qaadana laakiin qawaaniin iyo balaayan maanta ka daba cararayna maanta. barigii la sameeyay dastuurkii lixdanka yaa sheekh Soomaaliyeed wuxuu ka sheekeeyay wiil ya abiis su'aal weydiiyay isagoo bariga ay ku mashquulsanaayeen sharci dejinta iyo muxuu ahaa dastuurka lixdanka markii la sameeyay markaas wuxuu ku yiri aabo oo waa maxay sharciga la dejinay kitaabka ilaahay quraankaaba in yaale waa maxay waxyaabaha la dejinay. markaas wuxuu ku yiri wiilkaygiyo inagu waxaan dejinaynaa sharciga aan dejinayno waa sharcigii adduunyada waay kaas quraankana waa kii aakhiro. bal fiirso walaalayaal quraan kariimka wuxuu ku tilmaamay inuu yahay quraan aakhiro bas ka shaqeynaya adduunkan uusan shaqo ku lahayn. waa fikradda foosho xun ee maanta dalkeen lagu hogaaminayo walaalma.
aynu maanta quraanka maanta cid dhahaysa aysan sheegaysa aysan jirin maanta markii la yiraahdo hal shariicada hal tadbiiqiyo waxa la qabto waxa la leeyahay hay'ado iyo balaaya soo hadla waxa la leeyahay xuquuqul insaanka lagu tuntay saasaa la yeelay kaasaa la yeelay marka waa kitaabka Ilaahay oo na ka tagno walaal waxyaabaha inuu dhibaatada kaga bixi laanahay jahawareerka in ugu jirno waa ka tagitaanka kitaabka Ilaahay laga tago wax kale ma walaal Ilaahay inoo sheego man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dank nolosha ciriiriga ay dadka ku noolaanayaan dhibaatada iyo mixanta iyo qaxa iyo burburka iyo dhibaatada waxaan kaga bixi karnaa kaliya inaynu kitaabka Ilaahay Quraan Kariimka si dhab ah u qaadano isaga inuu isku xukuno hadii marka inuu isku xukuno waxyaabaha kitaabka Ilaahay aan ahayn muxuu ahaa taayida muxuu ahaa ayada badan oo Quraan Kariimka ku soo aroore in badan maxaa wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaa'ika humul kaafiruun fa ulaa'ika humul zaalimuun fa ulaa'ika humul faasiquun بالفرس عدي يعني ومن لم يحكم ما أنزل وحي إلهي سود جعلنا عدي وحكم مش وفاسقين وكافرين وظالمين قرآن كريم كتب لنا ما وحاسو إذا إنه ما أنت مغلينا وإنه لو شيء يعني اسكت دقترينا ولا اليوم وحينهم الدنيا وحاس قوانين تاسن ما أنت دبعرنا مركب مشكلة وحكل أيام دراه إن قرآن كريم قيب كمذن لقاضني ومحوها ما أنت محوها صلاته يو وان دكنا وتغفل هذا محوها بالرمضان ودر وين صومنا قرآن كائن وشيء مرك قرآن كي قيب كم ذوال لقاتا قيبتي محوها قرآن كهت وحوشية يا إن لسكو حكومة أو ما ملكي وحال بين قرآن كوشية يا مرك هذا قرآن كي قيب كم ذا إنه قاعدنا قيبنا إنه كتجن محين نغنينا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إن قرآن كي قار كم إنه الرميسنا قارنا إنه الدين ساسا كذا لنكرت marka waxa la rabaa quraanka kariimka gabi ahaan waxa u baahan inaynu qaadano inaynu ka dhigano inaynu manhaj la raaco oo Ilaahay inoogu tala galo waa inta aynu raacaynana muxuu ahaa aynan marna lumeyn sida nabiga uu sheegay kaleey salaatu wasalaam markuu uu dhimanay wuxuu yiri kitaabka iyo sunnada idin kaga tagay inta aad haysataan oo labadaasna ma lumeysaan marka muxuu hadda waxaan lumiyay labadii ayaan ka tagnay sunnada nabiga iyo kitaabka quraanka oo aan ka tagnay yaan la nul maada Soomaalidu maanta waa lunsan dhibaatada iyo lumitaanka inagu dhacay waxa u sababa inaynu ka tagno kitaabka Quraan Kariimka iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam marka walaal waa inuu ku baraarugnaa quraanku looma soo dajin kaliya in muxuu la akhriyo oo qiraa'adiis kaliya lagu muxuu la akhriyo oo la isku akhriyo inta kaliya quraanka uma soo dagin quraanku wuxuu kale u soo dagay in la isku xakumo uu yahay dastuurka rabbaaniga ah ee dadka in lagu maamulo loogu talagalay quraanka walaalayaal marka wuxuu ahaa waa inuu arinta ayada fahamno waa muhiim maxaa inaga hor taagan yaa inoo diidan yaa muxuu ahaa inaga muxuu hadaan quraanka isku xukumayna indhahna yaa waa dhibaatada inagu dhacaysa maxay tahay waa inaan su'aalaha dhan isweydiino waa muhiim maxaa ugu wacan inaan kitaabka isku xukumi laanahay yaa inoo diidan marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka bareena kuwa kitaabka Ilaahay quraanka u soo laabtay Ilaahay naga dhigo wa jazaakumullahu khayr wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh